la yiraahdo commitment ka go'naanshiyo la kaalaya ka go'naanshiyo ku celcelintu waxay soo dhaweeyaan guul kasto adiga ka fogeyd ama ka maqnayd bay soo dhaweynayaan maxsuulkaagi mustaqbalka oo dhan ayaabay ku hor keenayaan waxaad noqonaysaa qof la tirsan karo la tabi karo markuu maqan yahay markuu joogo labadaba la tabi karo lana tirsan karo ayaad noqonaysaa marka time meel geliso ee aad ganacsigan waqti qiimo badan u hurto ee waqtigii qiimaha badnaayd u huraysin aad ku celceliso ee tiraado hadii aan shalay tagay berri maxaa iga qorshaysan waa inaan tagaa oo shaqada qabtaa saa dambe saakuun bishan sanadka dambe waxaad sarka adiga on the floor levelka sare taagan isla markaana from zero to grasa halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sareysa waad isku xiri kartaa businesskaaga baa laga wada marka haddaba qofku markuu doonayo inuu commitment sameeyo maxaa looga baahan yahay commitmentigu muxuu u baahan yahay dabcan commitmentiga ka go'naanshiyaha laftiisa waxa la yiraahdaa is a promise to do something on behalf in a particular way in order to achieve something waxa weeyaan bahadiyad iyo waliba abaalmarin qofku uu oga dhigayo naftiisa maadaama uu ku celcelinayo shaqadan inuu ku guuleysanayo waa abaalmarin iyo hadiyad ku celcelinta lafteedu sababtoo ah waxaad hadiyad iyo abaalmarin oga dhigaysaa naftaadii wixii ay ka doonaysay ganacsigan inaad u keento sidoo kale waa rajooyin waaweyn ka go'naanshiyo wuxuu tilmaamayaa ku celcelinta ka go'naanshiyo waxay tilmaamaysaa rajo weyn oo aad ka qabto inaad hard work qabato shaqo adag si aad markaa hadiiba aad shaqo adag qabanaysana waxay u baahan tahay give energy inaad awoodahaaga siiso inaad energy-gaaga dul dhigto inaad waqtigaaga dul dhigto inaad awoodahaagii oo dhan dul dhigtay u baahan tahay waayo ma kala maarmaan waqtina waan bixinayaa energy-gaygana u huri maayo ma kala maarmaan waqtina waan bixinayaa energy-na waan bixinayaa activity dhaqdhaqaaqna la iman maayo in order to achieve something si aynu ugu guuleysano ganacsigan maxsuulka dambe ee aan ka doonayno waxa muhiimka leenaga doonaya waxa weeye saddex qodob oo is saaran time commitment iyo waliba hard work oo iyaduna ah inaynu ku celcelino si adag waliba shaqada u qabanno and give your energy inaynu siino awoodaheena oo dhan oo energy-geena aynu ku bixino businesskan si maxsuulka inoogu soo noqonayo oo noqdo mid ina raali geliya oo ina farxad geliya oo dadka inagu hareereysan oo dhan ay yiraahdaan war shalay zero baad ahayd maantana waxbaad haysataa there is something waxbaa isbedelay tomorrow-na waxaan ka baqaynaa inaad meel sareba gaadho su'aalahaas way imanayaan wanis maanta aad assistant supervisor tahay levelka ugu hooseeya company-ga waxaa lagu leeyahay maasha Allah waxbaad bilowday meel fiican baad maraysaa shaqo adag baad bilowday berri toolana waxaan rajaynaynaa meel ka weyn inaan kugu aragno oo wax weyn aad nagula soo noqoto sidaa darteed we have to make waa inaynu samaynaa waajib weeye time bixintu waa waajib mar hadiiba aynu shaqo isugu nimid ganacsigan aynu doonayna maxsuulkiisu inuu qurux badnaado time siintu waa muhiim sidoo kale commitmentigu ka go'naanshiyo waa muhiim waxa lagu gartaa qofka ka go'naanshiyaha sameynayana dee inuu hard work yahay qof hard worker oo shaqo adag qabanaya inuu yahay baa lagu gartaa qofka ka go'naanshiyaha leh sidoo kale waxa lagu gartaa give his energy inuu siinayo awoodihiisii oo dhan energy-gii hadday noqonayso talkative hadal yaqaan inuu hadlayo intaas oo dhan uu wax sharaxayo hadday noqonayso inuu wax iibinayo hadday noqonayso inuu team building samaynayo teamkiisa aasaasayo hadday noqonayso inuu safar galayo waa hubaal maanta qofka magaalada Hargeysa businesskeena ku dhex waday ee ku dhex shaqeynayay iyo qofka Hargeysa kula dhex shaqeynayay isaga laakiin baxay isagu safar baxay meeshuu doonaba ha u baxo magaalada doonaba ha u baxay laakiin businesskeena u baxay uu ka guulo badanaya waanu ka level duwanaanaya waanu ka dhaqaale badnaanaya sababtoo ah isagu wuxuu isku darsaday hard work-gii uu qabanayay shaqadii adkeyd ee uu qabanayay wuxuu ku darsaday isagoo energy-gii uu bixinaya time-kiina uu gelinaya hard work-giina uu sameynaya isagu muxuu ku darsaday safar wuxuu u bareeray magaalo aanu garanayn tusaale ahaan dadkiis ku yariin ama ehelkiis baanay deganayn laakiin businesskiisu uu ka furan yahay buu doonaya inuu caawiyo farqi weyn baa markaa u dhaxaynaya qofka maanta Hargeysa ku sugan iyo qofka intuu Hargeysa kula sugnaa ganacsigiisa darteed u safraya ee magaalooyin kale iyo meelo kale tagaya waa muhiim markaa qofka inuu socodka yaqaano iyo sida business building loo sameeyo iyo sida khuruuj ganacsi loo bixi karo qofku waa inuu aad u garanayo activity-guna waa qodob laf dhabara oo isaguna ku jira oo kamid ah qodobada waaweyn waxaa kaloo jira qodobo la yiraahdo qofkani mar hadiiba shaqadii uu qabanayo time-kii uu bixinayo energy-giina uu bixinayo sidoo kale uu ka go'an yahay ganacsigan uu ka go'an yahay ma waxaa jira baa lagu leeyahay oo muhiim in la ogaado are you interested or committed ma waxa tahay qof wax xiiseeyo mise way ka go'an tahay ma xiisaad ganacsigan u soo gashay oo maxsuul dambeba kama lihid oo waad xiiseynayso saaxiibkaaga ku soo biiray ama walaashaaba ku soo biirtay mise uu jeedo ka weyn oo ganacsiga ugu jirtaa jira
isna waa qodob lafdhabar oo ina taabanayo hubaal ah qofka labada qodob ka jawaaba inuu ganacsigan ugu soo biiray maxsuul dambe iyo inuu xiiso ugu soo biiray labada qodob qofka isweydiiyana waa hubaal inuu iskaranayo qofka uu yahay iyo halka uu sii socon doono iyo ganacsigan guulaha ka gaaray waxa la yiraahdaa hadaba ba dadka wax xiiseeya maxay kaga duwan yihiin dadka joogteeya wax dadka wax xiiseeya waxa la waxbay bilaabaan interest reads a book salahan book baad maanta akhriyaysa book baad isku dayaysaa inaad maanta akhrido book markaad akhrido book kaliya dhaafin maysid waxay ahayd markaad book dhamayso maanta inaad bari book kala doonato inaad saadama book kala doonato waayo commitment applies that knowledge day after day baa lagu leeyahay maalinba maalinta ka dambeeya dadka wax joogteeya iyagu way ku celceliyaan dadka guuleystaana way ku celceliyaan guushooda si ay u gaadhaan waayo dadka interestiga iyagu ay sameeyaan wax xiiseeya reads a book only hal book ma akhriyaan way ka kacaan buuga waliba micnihiisa hadii dib wax laga weydiiyo ma xasuustaan waayo xiiso buu qabanayay la xajaclo dambe iyo hadhow guulo waaweyn oo kale mustaqbalka sameeyo marjic dambe ka dhigan ma yahayn laakiin commitmentigu applies that knowledge day after day maalinba maalinta ka dambaysa qofkaasi uu ku celcelinaya shaqada tusaale assistant supervisor kii baad buuxisay waxaad u buuxisay waxay 480 kan lagu sheegay iska buuxi xiisun baa ku hayay laakiin commitmentiga baa ka maqan iyo inaad apply garayso shaqadaadii oo tiraado war hadii aan assistant kii dhameeyay oo 480 kii iska xiray shaqada labaad ay taala maxay tahay so team work maaha oo kaalay 480 ama inaan ganacsigayga 480 alaabo dalbado oo aan level 1 iska xidho oo aan u gudbo darajada ah inaan 30 discount helo oo sidoo kale teamkiina la ifasaxay micnaheedu waxa weeye inaan teamkii inaan dukaamo badan furto waxaad qeyl ka dhigato dhan markaad imika isku geysad aragto waa inaad tiraahdaa you know enough way ugu filantahay intaasi 3 sano aan dib dhacsanaa 10 sano aan nolosha ka haray qeyrkay 20 sano aan iska soo fadhiyay ee sheekada iyo musalsalka iyo TV-ga iga baxday it's enough way ugu filantahay waa inaad oran karaysaa it's enough way ugu filantahay enough ku celceli way ugu filantahay I must get up waa inaan imika kacaa oo aan qabtaa shaqo weyn I would take action ha oranin and get started but I just don't know enough yet qodobka dambe iska ilaali I would take action and get started now waan dhaqaaqaya waan kacaya ficil baan sameeynaya waan guuleysanaya inaad tiraahdaa waa ku muhiim but just don't know enough yet laakiin ilaa hadda sababta ay kicinaysa ma garanaya dad xagga dambe ka raacayso macnaheedu waxa weeye wali enough-kii kaama wada dhamaystirmin enough waan gaadhay waan daalay way iga dhantahay noloshaydii oo dhan baa burbursan fadhiga waa inaan ka kacaa waa inaan dabkan aan xaadxaadanayo ka dhex toosaa waa inaan bulshada hogaamiye leader u noqdaa waa inaan wax ku soo kordhiya haddii aanay noloshaada naftaada aanay oranayn oo wixii aad gubtay aanay kaa dhab ahayn qeylkii iyo gaskuiskii aanad gubinba I am just not ready yet baad oranaysaa weli diyaar ma yihi xagga dambe waxaad ka raacinaysaa warniyo waan jeclaan lahaa inaan shaqada qabsado waanan ku soo biiray waa run guul inaan ka gaadhana waan doonayaa managerkuna waxba iguma hoo 3 bilood bay igu qaadanaya ama 2 bilood laakiin xagga dambe waxaad ka raacinaysaa laakiin I am just not ready yet weli diyaar ma yihiyo xaafadan iyo shaqeeyaayo weli diyaar ma yihiyo biilkan ku dagaalamay safe side kan iska taaganayo weli diyaar ma yihiyo arday baan hayo dhalinyaraan hayo weli diyaar ma yihiyo hooyaan iska hayo de khalaas weli diyaar ma yihiyo aabaan hoo 6 maan marayaayo waxba noloshaygu harin weli diyaar ma yihiyo inaan janno galo ma awoodo inaan dadaalo there is always more to learn mar walba waxa jira if you are not ready now waxa la yiraahdaa if you are not ready now you will never be ready every day has this own reasons waxa la yiraahdaa hadii aadan maanta diyaar ahayn oo maanta inaad isbedel samayso dhaba aan diyaar u ahayn waxa la yiraahdaa waxa every day has its own reasons maalin walba waxay leedahay sababo u gooniya iyo qeylal u gooniyo ma dhamaado qeylku yee weliga isbedeli maysid if you are not ready now hadii aadan imika diyaar ahayn caawa oo aanad bari qorshe ku dhaqaaqayn oo caawa ayna qorshe ku degsanayn waa hubaal baa lagu leeyahay never be ready you will never be ready weliga diyaar uma noqonaysid isbedel dhaba oo noloshaada aad hor u dhaqaajiso hogaan dhaba u noqoto naftaada ummadana aad hogaan dhaba u noqoto if every day has its own reasons wax badan kala soo dhaxbaxa maanta qof baa xanuunsanaya yaad oran doontaa macmiil lama kulmi kara maanta waqti uma hayaan macmiil wax kaga iibiyo waayo qof baa familkiiba qof iga xanuunsanaya waa qiil waayo saacadaad wax iibiso qof ka qaabila maad waayin qofka xanuunsanaya dee waad caawinaysaa waa waalid laakiin maad waayin xal kale oo aad samayso sidoo kale waxa leedahay wardiyo maanta waa jimci waa la fadhiyaa naftaan u raaxaynay waa iska seexanaya
وقيل أدوين كبير وليبة واي مالنتا ومالين عباده ومالين إلهي لحصه ومالين قويس كان لغا فرحيو ومالين شقبضنا لغبان كرو ومالين لا اسكو دحودي كرا هول كستو ادويني تو اخره لبدبا واي لبدبا واي سانفعيان ما kala haraan waxaad leedahay wallahi maanta waa sabtiyo saaxiibkay waa mehersanayo shaqo kala qaban maayo waa markaan jiifaya sidan aroos baa jira sidan qiil ma dhamaado ilaa ay qiilka gubto qiilku ka dhamaan maayo every day has its own reasons maalin walba waxay leedahay sababaheeda iyo qiilalkeeda soo afjar adigu there is always more to learn markasta waa inaan wax kororsanaa oo wax baranaa si aynu sii socono you learn far more from experience than from training and reading tababarka badso oo adigu tababar badan qabo isku day try adigu tababar badan kororso qaado try isku day hadii aadan awoodin aan reading akhris badanna samee kuwaas waxay ku saamaxayaan inuu egeskiisku ka dhamaado inaad aqoonyahan noqoto in wax lagu daba fadhiisto inaad ganacsade weyn noqoto inaad dhaqaale badan sameyn karto inaad heer caalami umada ka soo dhex noqon karto aad noqon karto from international bad way su'aasha kale meesha taala waxa weey ee inta badan aynu qiilalka ka dhigana waxa weey hadaba 4 steps baan idin sheegay 4 talaabo muhiim ah great commitmentiga dadka waaweyn ee ka go'aanshiyaha waaweyn sameeya 4 talaabo caawiya step 1 get your mindset right maskaxdaadu had diyaar garowdo marka hore maskaxdaada jiha sax u yeelo had u diyaar garowdo inay isbedel dhaba sameeyso get your mindset right maskaxdaadu si dhaba ha u fikirto oo si dhaba ha u soo jeedsato oo waxaad ka sii jeedo qabahayso dhan weliga laakiin u soo jeedsa ganacsigan faulty beliefs waxyaabaha aad aaminsan tahay rume waayo waxyaabo ka maqan rume marka qaar nolol aanad gaadhin waa inaad sii rumaysnaataa barwaaqo aanad gaadhin sii rumayso aakhiro aanad gaadhinna sii rumayso waxaan oo dhan waxay keensanayaan inay awoodahaaga strange awoodahaaga inay caawiyaan oo ay ku kobciyaan bay keensanayaan have a good look at your life and decide that nothing is going to stand in your way of success have a good look si fiican adigoo u eegaya noloshaada go'aanso inaanay jirin wax ka hor istaagi kara guushaada adigu u qalantay inaad gaadho adigoo si fiican u eegaya noloshaada adigu u qalanto go'aan ku gaadh wax ka hor istaagi kara inaanu jirin guusha aad ku riyootay inaad gaadho aad doonayso adigoo iska hor istaaga mooyaan sidoo kale waxaynu isla eegaynaa step 2 refine your goals war goalkaagii wax ka khaldan yihiin sababtaad u guurguuranaysid u ordi kari laadahay sababta lugaha lagaaga xidhay ma garanaysaan sheekooyin caruurnimadii aynu ku riyoon jirnay adigoo jar ka sii dhacaya adigoo ceel ka sii laalaada adigoo ma garanaysaa cid ku eriyanayso oo aan kici karin marka xagga psychology-gaalka iyo caafimaadka loola kaco waxyaabo xaqiiqooyin oo ka jira laakiin inagu waxyaabaha qaar aynu marka dambe isku sheekayno waxa kamid ah Allahu musta'an lugahayga laabnaayo markaan hurdayeen gamacsanaa waxba ay eriyanayay waan ka dheerayn la iyadoo la qabanayo iyadoo la dilayo iyadoo ceel aan ka sii dhacayo ayaan sarkay sababtuna waxay ahayd baad leedahay markii dambe show lugahayga laabnaayo ma fidsanayn lugahaygu ma fidsanayn oo lugaha ii laabna markii aan hurday sababtaas aan u carari kar laayo lugahan ka xidhnaayo ka dabranaayo kale noqonaysa sidaa darteed refine your goals sababtaad adigu maanta u ordi kar laadeed u gurguuran kar laaday xitaa aad chiefka doonaysa in tuubo afka lagu geliyo aad taana u laadahay waayo qofna ma jecla adduunyada qof aan waxba qabsanin wax loogu daro qofna ma jecla guul aanu isagu jeclay inuu raadinayn in lala daba ordo qofna ma jecla sidaa darteed refine your goalkaaga dib u eegis ku samee maxaa ka khaldan goolka iyo hadafka aan dejistay maxaa ka khaldan qorshahan xalay dhigtay maxaa ka khaldan qorshii sanadkii hore aan saxo aan istul taago it is hard to commit waa runa way adag tahay in wax la joogtay in naftaad wax joogtayso if you finish line is just a noblest point of in the distance waxa la yiraahdaa it is hard to commit yourself to something if your finish line is just a noblest point of in the distance waxa la yiraahdaa way adag tahay in naftaadu ay wax joogtaysaa waa adag shay la joogteeyo laakiin baa la yiraahdaa inaad soo gaadho layka ugu dambeeya halku ku dhamaado waa wax kamida distance-ga aad shaqaysay ama aad oroday waana guul aad xaqiiqsay qayb kamida laakiin isdhiibitaanka iyo joojitaanka iyo waliba qeyl u raadinta wax xun ah so before you do anything get restless clear about what your ultimate outcome looks like set clear goal waxaad degsataa baa lagu leeyahay ka hor intaadan waxba qaban waxna aadan bilaabin maskaxdaada right mindkaaga maskaxdaada sax marka hore kadibna goolkaaga gool sax oo cad oo kooban oo naftaada qaban karta ka dhig